waxay ku dhex jirtaa boqolaal digaag ah oo ay xanaaneyso. tani waa aragti ganacsi oo Dr. Najma Cabdullaahi ku xambaartay in ay ka hirgeliso caasimadda. waxaan ugu dhalatay koorso ayaa ka qaadanaa xanaanada xoolaha oo ka mid ah digaaga. taas ayaa nagu dhalisay inaan qaadano. ka horna waxaan nooga sheekeeyay Ilaahay u naxariistay Dr. Cumar Kulmiye, sidaas aawadeedna ay ugu dhalatay aniga. digaagan ayaa laga kala keenay dalalka Kenya iyo Morocco si la mid ah raashinka la siiyo waxa laga soo iibiyaa dibadda sida ay tilmaamayso Dr. Najma. waxaan kala kulanay dhibaatooyin aad u fara badan waayo digaaga cunadeedu waxa laga keenaa badanaa dibadda iyo waxyaabaha ay u baahan tahay waxa laga keenaa dibadda. daawadeeda ayaa waxa laga helaa dalka iyo fitamiinadeeda, laakiin badanaa cunadeedu waxa laga keenaa dibadda. dhibaatooyinka ugu badan waxay tahay wax kasta waxa uu keenaysaa dibadda u aadaysaa. markasta waxay kugu noqonaysaa marka dibadda marka ka dalbato in ay waqti badan ka qaadato soo socodkeeda iyo imaanshaheeda inuu waqti ka qaadato adigana aad baahi u qabto in ay doorada ku qaadatana u baahan tahay. digaaga nuuciisa waa New Hampshire. waxaana ka keenay laba dalal laga kala keenay haaf qayb waxa laga keenay Morocco, qaybna waxa laga keenay Kenya, laakiin badanaa waxa laga keenay Kenya. marka Kenya waxay ahayd adiga 1500 ahayd, laakiin hadda waxa ku jirta 1300 iyo 200 iyo waxa ku jirto. marka laga yimaado caqabadahaas waxa barbar socda faa'iidada laga helo. kuma waxa ka helnaa adiga percentage 85% ayaa laga helaa. dhaqaalaha aad u fiican yahay. alxamdulillah ayadana way iskaabtay annagana wayna kaabtay baahiyaheena way xaqabtirtay. mashruucan waxaa fursad shaqo ka helay ku dhawaad 5 ruux oo rag iyo dumar isugu jira. noloshan wax badan ay ku soo kordhisay waayo hadda waxaan nahay qof businesskeeda amba hadafyadeeda ka xaqiijisay, laakiin shal waxaan ahayn dad oo iska jifa wax barta kaliya, laakiin maanta waxaan nahay dad business leh. wallahi waxa ka helay 4 qofood ama 5 qofood camal aan joogto. dumarka waxa waaye 2 qofood, ragana waxa waaye 3 qofood. Dr. Najma oo kamid ah maamulka mashruucan waxay sidoo kale la socotaa xaaladda caafimaad ee digaaga maadaama ay baratay cilmiga xanaanada xoolaha. qaabka loo xanaaneeyo way kala duwan tahay. waxay ku xiran tahay age-keeda. hadda kale way dhib yar tahay waayo hadda way biyuur way qaan gaartay way kala duwan tahay, laakiin markii ay yar tahay waxa laga jaraa afka. markii jirto 10 bir si isku cunin ayaa afka ugu jarnaa. marka waxa soo baxayo dhagiya soo baxayo marka sidaas isku cunaysa iyo midabkii marka si ayada isku cunin oo dhiig iyo iskaga keenin stressna u galin ilaa way koroosa korinsha u socdo ayaa waxa ka jarnaa afkeeda sidaan oo noqonaya markii la jaro afkeeda inuu isla kaada la rabo adiina la jarin, laakiin hadda waa la jara afkeeda isla ma eko. waxay ugu duwan tahay in ukunta saaska way kala duwan tahay. waxay kala duwan tahay in dhalowga taana waxay u qaygashaa, laakiin tan cuqdeedu way yartahay hadii galaysa xitaa way yartahay. boqolkiiba adiga 2% ayaa ka soo bixayso wixii cuq noqonayo. yoomiina way ku dhalaysaa dooradan oo dibadda laga keeno. waxa la hormariyay jiinkeeda ayaa la hormariyay, sidaas aawadeed ayayna u dhashaa maalin kasto. sanadihii dhawaa daayar waxbaratay oo daashaday shaqayarida dalka ayaa qaar kamid ah la imanaya aragti ganacsi oo hirgalay kuwaasi oo kaalin ka qaatay inay iyagu shaqo u abuuraan in kale oo la halkii ay ka shaqeyn lahaayeen.